رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa cisbitaalka xoogga dalka ku booqday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhaawacmay deegaanka Ceelsalin ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo argagixisada ka difaacaya dalkooda. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad ah oo dhameystiran waxayna booqashadan ra'iisul wasaare Khayre ay qayb ka tahay dadaalada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirigelinayo ciidanka qaranka Soomaaliyeed dhamaantood. رئيس الوزراء Khayre ayaa maamulka cisbitaalka xoogga dalka ka wareystay xaaladda caafimaad ee ciidamada naftooda horeyaasha ah ee u dhaawacmay ilaalinta badbaadinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed isagoo haliyada qaranka ee qaba dhaawacyada u rajeeyay in si dhaqso ah u soo bogsadaan askartii ku shahiidana alla uga bariyay in jannadii firdawso uu ka waraabiyo. geesiyaasha dhaawacyadu ka soo gaareen difaaca qarannimada iyo nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyay booqashadii dhiirigelinta waxayna u ballan qaadeen in marka ay bogsadaan ay dib ugu laabanayaan furimaha dagaalka si ay qayb uga qaataan dadaalada cadawga looga xoranayo qaybaha yaryar ay kaga sugan yihiin dalkeena isla markaana ay ku dhibaateynayaan shacabka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa guud ahaan saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ay ku sugan furimaha dagaalka uga mahad celiyay dadaalka ay uga jiraan soo afjaridda kooxaha argagixisada ee caadaystay gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.